السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وواضح أدي هذا ومهتمتين ما أنتوا واحد sagaalka bisha labaad ee February sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago kulankii group 5 ee Khamiistii dhacay 6da bisha waan ka qayb galay laakiin waxyaabihii looga hadlay inta badan ma aanan soo gudbin marka dad fara badan ayaa soo weydiiyay inta badan waxyaabihii 22kii bishii hore ay uga hadlayeen laakiin kulankan waxa diiradda lagu saarayay sida dadka kafaala qaadaya ama sponsor gareynayo group 5 dadkooda u xareeyay ay xildhibaanadooda ula xiriiri lahaayeen waxaana ka qayb galaya inta badan dadka applicationada xareeyay ama dadka soo dhaweynayay ayaa qadka la soo gelinayay oo qaabka ay ula xiriireen iyo waxyaabahaasi ka sheekeynay waan idinla wadaagayaa haddii alla idmo qaybta dhanka group 5 naga qusaysa ayaan rabaa inaan idinla wadaago sidoo kalena garsoore federaal ah oo wasaaradii Trump uu xil saaray ninka Elon Musk ahayd ka hor istaagtay inay hesho xogta dadka Mareykanka gaar ahaan wasaaradda maaliyadda arrimaha ka quseeyo oo qaybta paymentiga lacagaha laga bixiyo oo dadka social security kooda iyo bank account-yadooda in laga hor istaagay si ku meel gaar ah inay helaan sidoo kalena hay'adda USAID shaqaalihii la fire gareynayay oo shaqada laga joojinayay oo garsoore kale iyo shaqaalihii federaalka ah oo garsoore kale arrintaasna uu ka hor istaagay ciyaarta ugu daawashada badan wadankan Mareykanka ee footballka kulankiisii ugu dambeeyay ee Super Bowl-ka ayaa maanta dhacaya waxaana ka dhacaya magaalada New Orleans Trump xitaa waa uu ka qayb galaya arrintaasina qaybaha dambe ayaan idin kula wadaagaya balse marka hore soo dhawaada Group 5 kulankii ay qabteen teamka Welcome Corps ee Khamiistii oo 6da bisha ahayd waan ka qayb galay inta badanna waxa diiradda lagu saarayay sida dadka Group 5 ka dadkooda u xareeyay oo sponsoriska ah ay ula xiriiri lahaayeen xildhibaanadooda hay'ado kala duwan ayaa qadka la soo galiyay dad shakhsiyaad ah ayaa qadka la soo galiyay waxay ka hadlayeen sida ay ula xiriireen xildhibaanadooda arrintan ay cabashada ugu gudbiyeen iyagoo qaarkood sheegayba inaysan dhib badnayn in senatarkaada ama xildhibaankaada laga soo doorto gobolkaada inaad la xiriirto sidaan hore idinku sheegaba xafiisyadoodu balan uma baahno haddii aad rabtana waad wici kartaa haddii aad rabtana waad tagi kartaa iyagoo ma fadhiyaan laakiin dad wakiilo ka ah ayaa fadhiyo cabashadaadana waad u gudbin kartaa marka haweeneyda xiriirinaysa barnaamijka la yiraahdo Kristen ayaa waxa ay ka hadashay dadka already group 5 ku yimid wadanka Mareykanka oo wadanka gudihiisa ku sugan oo joogo in aysan arrintan saameyneynin dadkaasi marka ay hal sano joogaan waxay helayaan green card marka ay 5 sano joogaan citizen ayay noqonayaan laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan kala talinayaa in luqadda Englishka ay bartaan markay wadanka yimaadaan dadku waxay diiradda saaraan inay shaqo hore ka aadaan hadda waxaad arkaysaa dad ila soo xiriiray oo dhahayo green card-ki ayaa iga dhacay 10 sano ayaa green card-ka dadka la siiya marka 10 sano haddii aad luqadii ku baran wayso imtixaankii aad ku soo dhacday green card-kaadina uu ka dhacay baasaboorkaadina aadan xareysan macnaheedu waxay tahay sharcilaan ayaa tahay wadanka waa laga masaafurin karaa marka dadka wadanka imaanaya fadlan luqadda haddii aadan aqoonin luqadda waxay kugu qaadanaysaa 1 sano ama 6 bilood shaqo macnaha maxay shaqo ku taraysaa iyo lacag aad shaqeyso haddii wadankii sharcilaan aad ku joogtid oo xilli kasta lagu masaafurin karo marka dadka waxaan kula talinayaa in luqadda Englishka ay iska bartaan marka 5 sano ay u dhamaatana baasaboorkooda ay qaataan baasaboorkaada markii ay qaadato sidii dameerkii u shaqeeyay aday ku taala laakiin adigoo wax sharci lahayn oo hadda tiraada green card waa iga dhacay baasaboorna gacan kuma hayo macnaha adiga dhahayo Trump oo tarxiil meesha sharci darro ayaan ku joogaa marka dadka hadda kadib imaanaya iyo kuwa hadda yimid oo cusubba waxaan idin kala talinayaa luqadda Englishka waa ay fududahay 1 sano qofka maskax adagoo damiinka 1 sano ay ku qaadan kartaa qofka fududna 6 bilood ay ku qaadan kartaa inuu luqadda barto marka ka faa'iideysta luqadda barta sharcigiina ayaa ku xiran haddii aadan luqadda aqoonin way adag tahay sida imtixaankaasi aad ugu soo baasto arrintaasina waa idin kala talinaya marka gabadhu waxa ay tiri dadkaasi ma saameynaysa arrintan dadka hadda wadanka yimid oo group 5 lagu keenay marka xooti ahaanba ku yimid 1 sano markay joogaan green card ay xareysanayaan 5 sano markay joogaanna baasaboorkooda ay xareysanayaan laakiin arrintii group 5 oo Welcome Corps arrintoodii waxay sheegtay muddo 90 maalmood inay hakad ku jirto sidii aan hore idinku sheegay wax applicationaha cusub inaan la qaabilaynin applicationadii pending ama active ka ah oo la approve gareeyay xitaa sidoo kalena in case by case loo process gareeyay arrintaasina wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda amniga gudaha ayaa go'aan ka gaaray kiiska ay process gareynayaan waa sida hore idin sheegay dhamaanba falaajadii waa la kansalay mana jiraan wax falaajo cusub oo hadda schedule lagu sameeyay dad ticket loo jaray oo la keenay intaas oo ay sheegtay waxay tiri sidoo kale barnaamijkan Welcome Corps waa barnaamij dowladda federaalka ah
ay waday waxaana maamulayay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka. Marka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda amniga gudaha ayaa 9 maalmood kadib waxaa laga sugayaa in madaxweynaha ay talooyin u gudbiyaan qaabka ugu wanaagsan ee barnaamijyadan loo sii wadi karo. Haddaba gabadhan oo arrimahaasi ka hadlaysana waxay tiri refugees who were privately sponsored through the Welcome Corps program, which is that last row on your screen. This was paused as part of the U.S. refugee admissions program pause, but those who have arrived have a permanent path to citizenship and do not need to seek alternative status. They should simply apply for their permanent residency after 1 year of arrival to the U.S. And again, while refugees who are already here in the United States through the State Department's refugee admissions program still have a pathway to permanent residency, the program itself remains paused, which includes private refugee sponsorship. This program is paused for a 90-day review effective January 20th of this year. This means that no new applications can be submitted, applications are not being processed, and applications will be approved only on a case-by-case basis by the Secretaries of State and Homeland Security, and all flights to the United States have been canceled. As my colleague shares a link to our policy explainer about this program in the chat, I want to clarify that the Welcome Corps was a U.S. federal government program administered by the U.S. State Department, and this is the program that is paused. sidoo kale barnaamijka oo dhammaystiran waa 1 saac qaybta linkiga ayaan soo dhigaya qaybta commentiga linkiga waana idinku biingareynaya marka qofka hadii uu rabo barnaamijka oo dhammaystiran inta kale waxay uga hadlayeen dadkii oo fikradooda la weydiinayay qaabkii xildhibaanada ay ula xiriireen iyo sidoo kalena arrimihii dadkii wadamadan kale oo Guatemala, Venezuela, Cuba iyo Haiti ka yimid iyo dadkii Ukraine barnaamijyadooda ay uga hadlayeen marka intaasi ayaa welcome kooda sama qaxootiga ka quseysay hadda aan idin la wadaagay qofkii rabana muuqaalka oo dhammaystiran qaybta commentiga been ayaan ku qabanaya halkaasi ha ka daawado dhinaca kale garsoore federaal ayaa waxa uu ka hor istaagay wasaaradda ama waaxda uu Trump u magacaabay Elon Musk oo la yiraahdo Department of Government Efficiency oo loogu talagalay lacagta dawladda federaalka bilaan macnaha ay ku bixinayso in dawladda dib loogu soo celiyo ayaa garsooruhu waxa uu ka istaagay in wasaaradda maaliyadda xogta dadka Mareykanka ah oo dhinaca social security ama bangi accountiyadooda in ay helaan inay tahay sharci federaal inay ku xadgudbayaan waxana garsooruhu si ku meel gaar ah uga hor istaagay wasaaradda oo Trump u xil saaray ninkan Elon Musk ee Doge loo soo gaabiyo in ay arintaasi sameeyso 19 gobol ayaa dacwad ka gudbiyay waxayna ku tilmaameen inay xadgudub tahay oo qofka sirtiisa lagu xadgudbayo sida uu dhigayo sharciga la yiraahdo The Privacy Act oo 1974 la sameeyay iyo sharciga kale ee dib u habeynta canshuuraha oo Tax Reform Act la yiraahdo oo 1976 isagana la sameeyay iyo sharciyo kale waxa sidoo kale jirta in qofkaasi cyber security risk uu ugu jiro in qofkaasi xogtiisi website-yada madowga ah dadka xogtooda lagu iibiyo in gacanta ay u gasho marka arrimahaasi oo idil 19 gobol waa ay dacweeyeen maamulka Trump oo garsooraha oo New York fariisto oo magaciisa la yiraahdo Powell Engelmayerna arintaasi si ku meel gaar ah ayuu u joojiyay waxaana ku tilmaamay maadaama xiriiryaasha 19 gobol ay ku tilmaameen arintaasi xadgudub inay ku tahay sharciyada federaalka garsooruhu si ku meel gaar ah ayuu u hakiyay gobolada dacwadda gudbiyeen waxay kaliya Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont iyo Wisconsin 19 kaasi gobol ayaa dacwadda gudbiyay sidoo kalena shaqaalihii Trump emailka intuu u diray oo yiri shaqada isaga taga ilaa iyo bisha 9 ayaa lacagtii la idinsiinaya ama waa la idin fire gareynayana garsoore ayaa si ku meel gaar arintaasina u hakiyay waxaana ilaa iyo hadda qaatay oo emailkaasi ka soo jawaabay in ka badan 65,000 oo shaqaalaha marka shaqaalahaas hadda waxay leeyihiin shaqadeennina waan ka tagnay arinteena garsoore ayaa si ku meel gaar ah u joojiyay sidoo kale hay'adda USAID oo 10,000 oo qof ay ka shaqeynayeen sidoo kalena shaqaalahoodii la fire gareynayay garsoore ayaa iyadana hakiyay ilaa iyo 10,000 oo shaqaalaha ayaa hay'adda USAID ka shaqeynayay 600 ayuu doonayay maamulka Trump inuu ku soo koobo qaarada Afrika dhan 12 shaqaalaha ayaa loo qoondeeyay Middle East-ka dhanna bariga dhaxana waxa loo qoondeeyay
21 shaqaalaha marka arintaasna hadda garsoore ayaa sidoo kale hakiyay wadankan Mareykanka football ayaa si aad loo daawadaa ma ahan footballkii aan ku naqaynay Africa laakiin waa Brunigan dadka xoog leh ciyaaraan ciyaarta ugu daawashada badan oo finalka ayaa maanta dhacaysa Super Bowl 59 ayaa la yiraahdaa waxay ka dhacaysaa garoonka la yiraahdo Caesars Superdome oo ku yaala New Orleans magaaladaas waa magaaladii ninkii Shamsuddin Jabbar ahaa oo baabuurka ku dilay 14 qof 30 kalena uu ku dhaawacay habeenkii sanadka cusub ee sanadkan 2025 ammaanka aad ayaa loo adkeeyay Trump ayaa ka qayb galaya waa markii ugu horeysay madaxweyne xil haya ciyaar Super Bowl oo ka qayb galo Trump meelaha la isugu yimaado waa uu jecel yahay waa nin fan jecel marka waa uu tagi doona uuna ka qayb galaya ciyaartan waxa isku farasaari doona Kansas City Chiefs oo koobkoodii saddexaad isku xiga Super Bowl-koodii saddexaad isku xiga doonaya iyo Philadelphia Eagles oo 2 sano ka hor ay kulmeen laakiin Kansas ay ka qaaday marka waxa si aad loo daawan doona labada quarterback ee Patrick Mahomes oo Kansas City Chiefs u ciyaara iyo sidoo kale Jalen Hurts oo isagu u ciyaara Philadelphia Eagles sidoo kalena waxa si weyn loo sugayaa ciyaarta half time-keeda waxa jirta entertainment la sameeyo markastaba marka fanaan ayaa lagu casuumaa hadda Kendrick Lamar ayaa lagu casuumay oo toddobaadkii la soo dhaafay 5 Grammy ku guuleystay ku dhawaad 20 Grammy ayuu haystaa oo abaalmarino ah waxaana sidoo kalena ciyaarahan half time-ka showga uu noqon doona 13 daqiiqo xayisiinada la soo gelinaya half time-kaasi waxa la leeyahay mid ugu yar $7 milyan ayaa laga qaatay 30 second xitaa dadka xayisiinaya oo fanaaniinta dadka caanka ah waxay ku qaadanayaan lacag fawqal aqliya in 30 second oo xayisiin ay sameeyaan 30 milyan 40 milyan 50 milyan ay ku qaadanayaan sidoo kale waxa si weyn loo eegi doonaa Taylor Swift oo saaxiibkeed Travis Kelce oo ciyaar Kansas City Chiefs oo iyadoo ka qayb galaysa marka ilaa iyo 100,000 oo qof ka badan ayaa ku sugan magaalada New Orleans ammaanka dhinaca hawada garoonka sida aragtaan waa la sugay cirka dhulka dhinaca webiga Mississippi iyo sidoo kalena ciidamada National Guard ilaa iyo 3,000 oo ciidamo kala duwan ayaa ammaanka sugaya marka gamekaasina wuxuu yahay game si weyn loo sugayo maanta sidaas ayaa waxay noqon doontaa ciyaartii kama dambaysta ahayd ilaa iyo 100 milyan oo qof ka badan ayaa TV-yada kala socon doonta maanta oo kale waxay noqonaysaa maalin qof kastaba gurigiisa uu ku jiro waxyaabaha cuntada la dalban doono sida pizza chicken wings iyo waxyaabahaas waa fooqal caqli waaye marka ciyaartaasina waxay tahay ciyaarta maanta la sugayo oo dadku Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka si weyn looga diyaar garoobayo daawashadeeda aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono oo saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo